isku soo noqod wanaagsan qayaarta wadanaga daawanaysa ay qodobada hore u soo daawateen oo faahfaahsan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay waxaa xalay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ku geeriyooday xildhibaan Aadan Cali Jamhuuriye oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Aadan ayaa ahaa xoghayihi guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka tacsiyay geerida marxuumka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo ka tacsiyay geerida marxuumka ayaa yiri waxaan tacsiyad la wadaagayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyska uu ka baxay xildhibaan Aadan Jamhuuriye. Waxaan Alle uga baryayaa in naxariista janno ka waraabiyo eheladii uu samir iyo iimaan ka siiyo. Sidoo kale wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta ka tacsiyay geerida xildhibaan Aadan, wuxuuna yiri waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday walaalkeen xildhibaan Aadan Xasan Cali Jamhuuriye. Waxaan Alle uga baryayaa inuu naxariista janno ka waraabiyo qoyskii iyo eheladii uu ka tagayna samir iyo iimaan ka siiyo.